سمرة سدوين هلا بسم الله الرحمن الرحيم سمركو ودبيعad la kasbado tan ugu weyn la'aanteedna shakhsiga iyo mujtamaca horumar ma gaari karo runtii maanta waxaad moodaa adduunyada sabarka iyo dulqaadka inuu ka dabar go'ayo isu tanaasulkii iyo isaqbalayeen mujtamaca waa yaraaday aad ayuu u yaraaday runtiina haddii aan Soomaalinahay samirkeena iyo dulqaadkeena aad ayuu u yar yahay oo salfudeed ayaana lagu saliday tusaale ahaan waxa arkaysaa lamaana Soomaali ah oo furiin ku degdegayo oo aan fursad siineen guurka waxa arkaysaa arday Soomaaliyeed oo dhex ku dhaafaya jaamacadda iyo waxbarashadii diinta waxa arkaysaa ganacsato Soomaaliyeed oo ganacsigooda dhaqso xiraayo waxa arkaysaa siyaasiyiin aan isu samreyn oo aan isu tanaasulayn runtii samirku waa sifada Ilaahay uu u jecel yahay dhowr meelna quraankiisa uu ku sheegay waxay ku suuragelinaysaa inaad u hoggaansanto amarada Ilaahay iyo cibaadadiisa inaad ka fogaato xumaanta iyo ficilada xunxun waxay kaloo ku suuragelinaysaa aqbalaada xukunka iyo qadarka Ilaahay dib iyo dheefba runtii qof walbo meel gaaray ha ahaado dhinaca cilmiga ganacsiga iyo isboortiga Ilaahay ka bacdi wuxuu ku gaaray dadaal iyo dulqaad Soomaalidu waxay tiraahdaa sal fadhiya suuf gura ruux aan sal lahayn sadkiisa laalan qofkan kaadsiimo iyo dulqaad lahayn wax ma calfado runtii dhibaatada maanta jirta waxay tahay teknoolajiyada cusub iyo social media waxay dadka uga dhigaysaa ama dhalinyarada u fahamsiinaysaa in qofka guusha gaaray uu ku gaaray maalmo dhowr ah ama waqti yar yani social media ma sheegaan qofkaas guusha gaaray sanooyinka badan uu soo kalihi jiray iyo culayska uu soo jiitay si uu hanto guushaas tusaale ahaan Cabdi Bile iyo Maxamed Faarax inta ay rikoorka adduunka jabin oo bilada dahabka ay qaadan waxa ka horeeyay sanooyin badan oo dadaal iyo dulqaad iyo tababar kalahaad ku fid iyo kicid isugu jiro sidoo kale guurka miraha dhalay ee furiinka ka nabad galay waxa ka horeeyay dulqaad iyo samir oo ay lamaanaha la yimaadeen taasoo ka celisay balaayada furiinka ee daciifisa tiirka mujtamaca haddii aan gudbo dhinaca siyaasadda sideedaba waa socod gaaban tahay samir iyo dulqaad ay u baahan tahay oo miro dhalkeedu muddo dheer ay qaadataa siyaasad aan samir lahayn waa lagu sakraamaa dawladaha horumaray ee hantay qaran khubad leh waxay ku gaareen dadaal iyo dulqaad isu tanaasul is-aqbalid dalal badan ayaa dagaal sokeeye soo maray oo hadda u gudbay marxalad nabad iyo horumar iyo barwaaqo waxaa la yiraahdaa geedaha qaata muddada dheer oo yani geedka qaata muddada dheer ayaa ugu mirahiisu macaan yahay oo miro yani ayaa ugu miro mac sida geedka cambaha maangaha sanooyin qaadataa macnaa intuu ka miro dhalaya laakiin waa macyahay laakiin taas waxaa ka horeeya inaan abuur fiican macnaa geedka siyaasadda aan ku abuurno abuur oo fiican oo yani saliim ah maadaama geedka siyaasadda uu qaadanayo muddo dheer oo sanooyin ah runtii marka aad fiiriso leegada ka bacdi abuurkii hore oo aan ku abuuranay wuxuu ahaa abuur qabiil taasna waxay noo soo saartay miro aan fiicnayn miro waxay noo soo saartay miro oo noo jiheeyay dagaal sokeeyo waxay noo soo saartay miro ama siyaasad ku salaysan dabeecadda ah aan wax qalano midiyahana kala qarsano marka Soomaaliyay siyaasadeena hadda abuurkeeda aan ka dhigno abuur saliim ah oo u horseeda qaran Soomaali ah oo quwad leh oo isjecel hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliyay aan isu samirno aan isu tanaasulno caruurta hadda oo jiilka cusubna aan samirka iyo dulqaadka aan barno samirka iyo dulqaadka looma dhasho yani waa la kasbadaa aan caruurteena barno samirka iyo dulqaadka iyo isu tanaasulka culumada caruurta ayaa waxay leeyihiin si ay caruurta ku bartaan dulqaadka waxa caruurta la baraa ayagoo yar beeraha iyo farsamo gacmeedka iyo farshaxanka
maxaa yeelay qofku markuu wax beerto waa inuu sugaa markuu abuurka dhulka geliyo inuu sugaa intuu beertii kasoo korayso sabarkaas ayaa qofkii waxay ku abuuraysaa inuu sugo uu sabar yeesho runtii walaalayaal geeska Afrika waxaa ka soo socdo isbedel weyn oo xawli badan sida kaliya aan gacanta sare ku lahaan karnana waxa waaye inaan ahaano qaran quwad leh oo isjecel oo isku qalbi furan marka sida taas lagu gaari karana waa samirka iyo dulqaadka haduu Ilaahay yiraahdo gabagabadii waxaan ku soo khatimaynaa tix gabay ah uu tiriyay abwaan maxamed dhaqaafi cilmi tixdaas waxay tahay dulqaad iyo dadkaygow maxaa samir inoo diiday danta guud haddaan laga shaqayn waa damiir xumiye isku duubne iyo nabad ayaa lagu dadaalaaye daalnaye dadkaygow bulshada nabad ha loo dooro allahayow dariiq toosan iyo dowsan nagu aadi oo dowlad caadil ah nasi deeqsi baa tahaye walaalayaal harajo dhigina dhibka dheef ayaa ka dambeeya abaartana aaran ayaa ka dambeeya si taas loo gaaro waa inaan qalbiga isku furnaa isu samirnaa hadduu Ilaahay yiraahdo taas ayaa noo suuragelinayso inaan helno qaran qurux badan oo quwad leh hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen waa barnaamijkii horumar ummadaada oo idin soo gudbiyay wiilkiina ama walaalkiin Baazi Xaaji Busuri waxaa kaloo isku soo dubariday wiilkiina ama walaalkiin Axmed Amiin Xasan daawadayaal barnaamijkan waa barnaamijkiina waa barnaamij taxane ah la socda bogga Facebook iyo YouTube ka kala socda insha Allah taala waxaan ku dadaaleynaa barnaamij oo dhaxalgal ah oo ummadda wax u taraysa inaan idin soo gudbino jazaakumullahu khayran daawasho wacan iyo dhageysi wacan maca salaama